ها فإذا برق البصر فإذا برق البصر ده فإذا بشر فإذا برق بشر sidaan ayaa ah qaabka cashirada loogu meeriyo marka uu yimaado dugsiga uu quraanka ka barto Maxamuud Muude Mayaase oo 87 jira maqalkuna uu ku yar yahay shan iyo toban sano ka hor ayuu yimid dugsiga macallin Ismaan isagoon quraanka qorin akhrinna balse haatan Maxamuud waxa uu yahay mid meel wanaagsan marinaya waxbarashadiisa sida uu ka warbixinayo macallin Ismaan oo uu dugsigiisa dhigto horta ninkan adeer alif axmal ana u bilaab ka hore wax uu haayay ma jiro macna yaraantiisa dugsi lama gelin alif axmal ana u bilaab alxamdulillah fartaas hadda soo qoray waa la soo farbare ilaa al-yawmadan waa isla joognaa 15 sano wax ka badan isla joognaa marka alxamdulillah aad iyo aad u fahmaa hadda in kasto hadda dhigaha iyo xogaa waayilnimo ay gashay laakiin xaraftii u yeertid kama dhumeeso oo macnaha waa qora waxa uu Mayaase daris iyo saaxiib ka dhigtay masjidka iyo dugsiga quraanka waan halka uu joogo waqtigiisa oo dhan si uu xaqiijiyo hadafkiisa barashada quraanka isagoo daa oo fadhiga badan iyo socodkuba uu dhibayo wax barashan oo kale dugsiga ina wax barto haddii dhimihishada meel qaar kale ka dhimo ani saddex meel ma igu waayso dugsigan masaajidka guriga bas meel ma wareego may wareeg mar horaan dhaafnay mar horo aka tagnay wareeg mar sota malsara ya wareeg waxa asraayo male hatta qaatumada waxaan ku dhameyshaynaa dugsiga masaajidka waxaan ciise loo xaadi oo quraanka ku soo baratay hada xasuusatid hada kale waa ka wayna noolih aad weyn aad aan xasuustaa looxan waa looxan quraanka ku bilaabay macallin Ismaan waa macallinkii dugsiga quraanka ii bilaabay quraanka aad ayaan ugu faraxsanahay dib u helo waxa uu wali dugsi ku leeyahay degmada Shangaani ee gobolka Banaadir walina wuxuu waxbarashada aragteen carruurtan isagoo ku dhii markasta heegan u ah barista quraanka kariimka aad ma samaacdo waa kaaga mahad celinaa maya waa qof oo daa oo dhigla culeyskeeda ma yara laakiin waxa ka sii culus ina ka xanaaqdid wax ma baray aad tiraahad oo bir qiyaam loo ciqaab taasa ka culus macnaha barashada hadda dibkaan hadda u salaala maraayo dibka ka badan waxa waaye hadda ka xanaaqdid aad tiraahad ma bari kari aad tiraahad taasa ka sii culus ka dib badan macnaha ina u sabartid oo hal xaraf u gaarsisid taasa maanta afudeed taasana fiican taasana lafteeda aan macnaha taasa isku leeliyay ina baro ma amkana hadoo maqlubayna maanta dhan ina uu celceliyo ilaa uu ka fahmo xarafta dadka adiga kula daada maxaa ku dhiirigelin wax ay leeyihiin ma jirtaan aniga dadka hadda aan ila daay oo imaad baarki ma jirto oo imaado yeerkada wuxuu ku yiri waxaan ka rabaa dadka 78 jiro oo darbiga iyo meelaha fadhiyo maxaa dhihi lahayd waxbarashada soo aadama dhihi lahayd mise waa ka aamus lahayd marka arko waxbarasho aada imaada intaan joogay dugsigan waxaan isku dayay inaan su'aalo weydiiyo Maxamuud Muude Mayaase balse waan isfahmi weynay badi su'aalihi aan weydiiyana waa uu fahmi waayay sidaas ay tahay macallinkiisa quraanka waa uu fahmaa marka uu cashirada u yeerinayo Maxamed Ciise Koona Universal TV Muqdisho